بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لمان أرضيدا محدك جران أونلاين أكاديمي كحرا يدد وينها جعل برشادة لغة عربية. وأن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما على المصطفى حسين جامع معاني كمادة اللغة العربية. أرضيها ما توحن قادلنا 10 موضوعي سيهاي في النحو العربي. 10 كاسي عوانك سوا الظرفي. عشركii intaan bilaabin waxaan ogeysiinayaa dadweynaha xiiseynaya barashada luqada carabiga iyo ardayda ku xiran tacliimta luqada carabiga in koorsaad cusub amba cashiro cusub la soo gudbinayo oo maxadku gudbin doono. marka waxaan ka codsanayaa in ay la xiriiraan maamulka maxadka iyo idaarada maxadka. aad iyo aad baan idin salaamay mar labaad. cashirkeena haddaan ku laabto, cashirkeena maanta wuxuu ka hadlayaa ad-dharfu ayuu ka hadlayaa amba al-maf'uul fiih. labada magac buu wataa. ظرفنا ولا يرهضا، المفعول فيهنا ولا يرهضا. سيدو كسنته نحوه حليه مذاهب لما مذهب وعنصا لما مذهب وحكي مذهب البصريين هي مذهب الكوفيين. مركا كوفيين تعياو يقانا ظرف، بصريين تنوحوا يقانا المفعول فيه. هذا الظرف يقول محويه. الظرف يقول إنه تعريف بوينسيي وحلي اسم منصوب يدل على زمان أو مكان حدوث الفعل ويتضمن معنى فيه. ظرف يقول ولغهان وحنا الوعاء ووحي وحسوكو بيسد ويلكو كلا وحوءه بمعنى وحكوبيه. تعريفهان ابا اصطلاحان وحدان واسم. ظرف يقول واسم حرف ما نقضه فعل ما نقضه اي واسم. منصوب حالات كاعرابتي شنو هو منصوب؟ مر والبوا منصوب على الظرفيه ايا لو نصبيا ابا منصوب على المفعول فيه. وحي هذا محو شيغا محو قيحا ظرفيغو محو معنايا amba محو inoo sheega. wuxuu يدل على زمان أو مكان حدوث الفعل. ficilku markuu dhacayo badanaa ficilku xilli buu dhacaa meelna uu ku dhacaa. haddaba xilligu ficilku dhacayo iyo goobtu ficilku ku dhacayo waxa loo yaqaan ظرف aba mafcuul fiihi ayaa loo yaqaan. waqtigu ficilku dhacayo iyo goobtu ku dhacayo ayaa loo yaqaan ظرف amba waxa loo yaqaan مفعول فيه أي الله يقام. وحي ويتضمن معنى فيه. ظرفك واحد لقد نصنيا معناها في بالقد نصنيا وايو في ظرفية ويان دح قليد بيشيقسها. يمكن تصالحنا كله شرب الدواء صباحا. شرب الدواء صباحا. كيف بكان كهاو عبي دودي صباح. أي واحد لقد كذا أي شرب الدواء في الصباح. الرنمدي أيو دواء عبي. markaad ka dhadhamisid macnaha fi waxaad dareemaysaa kelmadaasi inay daraf ay tahay. shariba dawaa sabaaxan arunimo cabay ay arunimada marka lagu jira arunimada ayuu cabay. idan waxa laga fahmayaa macna fi. sidoo kale kaas waa zaman makaankuna waqafa amaama almir'aat wuxuu hor istaagay muraayada horteedu istaagay ay fi jihati almir'aat xagga jihada muraayada ayuu istaagay. wax kastoo aad ka dhadhamisid macnaha fi amba معناها في laga qaadanayo amba laga fahmayo waxa loo yaqaan ظرف amba waxa loo yaqaan مفعول فيه ayaa loo yaqaan. hadaba ظرفku uu qaybsamaa laba qaybood buu qaybsamaa. labada qaybood ee ظرفku uu qaybsamo maxay kala yihiin? wuxuu yanqasimu الظرف إلى مبهم ومختص. labada qaybood buu qaybsamaa. مبهم waa shay aan daharan bimacnaa aan macno badan oo xadilayn aan lahayn. مختصكنا والشيء جار وسي جارة معنى وش هي. بلان أجنو مبهم هي مختص محيك ليه. وحلا المبهم هو ما دل على زمان أو مكان غير معين. وزمن كي عم بحلي عم بجوبتي أو أن حددنين. زمنكو حد ملا جوبتنا حد ملا. وجوم بالشيء يحلون بالشيء حلي قاسي ما أستيسنا. كما أستيسنا قدر أما مقدار كما أستيسنا. مكان كان ساسو كله كما استثناء حد يحدود كما استثناء. كاسو كله وحلو يقان مبهم بالله يقان. تصالح حين لحظة زمان كمبهم كواسيدة حين حلي محلو كرا ساعات بنوغن كرا بيل بنوغن كرا سنة بنوغن كرا. لكن حين مركز صالو شيغو وشيء أن القياس كرين مدده انتي تاي. لحظة نوا البرقسي من قياس كرتيد سينغن كرتو. مركا ظرف كزمان كسيدة حين هي اللحظة waxa loo yaqaan mubham baa loo yaqaan. amaam iyo khalf waa ظرف makaan oo mubham ah. amaam waa hortaada wixii ka horeeyo dhan
waxa la yidhahdaa amaam. Amaamkaasina xad ma leh, ma 2 mitir oo hortaada ah, 3 mitir oo hortaada, masaafo intee leeg baa la odhan karaa hortaada, xad ma leh. kaas oo kale waxa la yidhaahdaa ظرف مكان مبهم. kaga soo horjeedan waa mukhtas. mukhtasku waa maxay? huwa maa dalla calaa zamaanin aw makaanin mucayan. waa ka sheegaya xilli xadidan oo leh bilow ilaa dhammaad leh, iyo makaan xuduud leh oo barbilow ilaa bardhamaad leh. ka wax loo qeynaa mukhtas ayaa loo yaqaan. tusaalihiisa maxaa ka mid ah? zamaanka marka loo shahar marka la sheego waa xilli, xilligaasna uu kooban yahay 30 cishe wada socda, waxaa loo yaqaan شهر baa loo yaqaan. idan darfigaasi waa darf zamaan mukhtas ah oo maxay ah oo koobaya xilligu intuu yahay. madrasa waa darf makaan oo mukhtas ah. madrasa waa goobta wax lagu dhigto, goobtaasina way xadaysantahay, waxay ku xadaysan tahay xuduud bay ku xadaysan tahay. xuduuddaas la odhanaya waa madrasa, inta ka baxsan la odhan kari maayo waa madrasa. marka wixii xadaysan goob ku xidhan amba ku xidhan xuduud ku xidhan ayaa loo yaqaan ظرف مكان مختص. maxaan u sheegayaa darfigu inuu mukhtas iyo mubham yahay? markaad icraabta darfiga aad ku soo maraysaan waxaad arkaysaan waxa la nasbiyaa cala darfi lagu nasbiyaa zamaanka amba mukhtas haado amba mubham haado. laakiin marka makaanka la joogo waxay idhaahdaan waxa la nasbiyaa oo keliya markuu makaanku yahay mubham. markuu yahay ayuunbaa la nasbiyaa. mukhtas markuu yahay nasb cala darfiya lama siiyo. cashirkani ardayda mustawa thani ayaa si wanaagsan u xusuusan masalada markaan jeedinaya aan ba sheegay. waayahay masalada u dambaysa waxa weeye caamil an-nasb. waxaan soo sheegnay darfigu yahay ism mansuub inuu yahay uu nasbisan yahay. maxaa nasbada u sababa inuu ismkaasi mansuub noqdo? maxaa keena inuu darfigu mansuub u noqdo? waxay idhahdeen caamil an-nasb, nasbaha caamilkiisu caamil an-nasb fi darf, darafka caamil nasbiisa bimacnaa ka sababaya inuu nasbada uu siiyo ima ficil baa dhici karta oo sabab u noqdo inuu darfigu mansuub noqdo, aw masdar ama masdar baa u noqon kara, aw wasfin wasf ayaa u noqon kara. saddexdaasi ficilka waa falki, masdarkuna waa ficilka 3 jeer la rogay oo marka sida daraba yadribu darban oo kale 3 jeer markuu soo noqdo kelmaddu ay soo noqoto mar saddexaadka ayaa loo yaqaan masdar. isaga si gaaran cashir uga bixin doona haddii la yiraahdo. wasfiguna amba waa ism faacil amba waa ism mafcuul. kuwaasi waxa loo yaqaanaa cawaamil nasb al-darf, waxyaabaha darfiga nasbiya. tusaale ahaan wuxuu yidhi zurtuhu masaa'an, waxa soo boqday goorfiid ah. masaa'an waa darf zamaan. darfigaasi waxa mansuub ka dhigay ficilka zurtu ayaa ka dhigay mansuub oo isaga u caamila. almashyu yamiin الشارع waa misaal kale. socodku wuxuu ahaaday midigta laamida amba midigta wadada. marka mashi waa masdar, masdarkaas ayaa nasbiyey darfigaas. markuu wasf yahay oo ism faacil amba ism mafcuul, wasfigu saan sheegay ism faacil noqon kara, ism mafcuul noqon kara. mithaalkiisu waa ana dhaahibun ghadan. dhaahibun waa ism faacil, wuxuu nasbiyey ghadan oo masdar oo darf ah ayuu nasbiyey. ardayda cashirkeenu maanta intaasuu ku kooban yahay. tan iyo kulanti dambe oo wacan. aad iyo aad baan idin salaamaya. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.